caalamka aad ka joogtaan kula soo dhawaada waraysi gaar aan ku falanqayn doono go'aankii madaxweynaha Soomaaliya oo dib isaga celiyay baasaboorkii Mareykanka oo ahaa jinsiyad labaad oo madaxweynuhu watay go'aankaasi wuxuu ka bedeli karaa siyaasadda Soomaaliya barnaamijka waxa ay la qayb galaya oo mahad celinaya waqtigooda qaaliga barnaamijkan ku soo bixiyay Saacid Daahir Saacid Soona oo waqtigiisa qaaliga barnaamijkan ku soo bixiyay sidoo kale Cali Maxamed Abuukar Cali Xildoon oo iyaguba ah dhanka falanqaynta si aad ula socday arimahan ku soo dhawaada barnaamijka ساعد ذنب هرمريا وأن كان مدفنها الصومالي وقاتي كودي أغسطو حلقين تدري آدو بدني محوك بدلي كرا سياسة الصومالي الإسلام وما تنتهي آدم كوجو مهد علنا يا أذيك إيو فرسمي قناة إيو تلفزيون كدمان إيو صاحب كيجا برنامج إلى قيب قاضنا يا وحوك بدلي كرا وحوفريا بيج عصب أنا قصدي إلى تهاي أو إلا ma ogi Afrikada kale iyo dalalka kale laakiin Soomaaliya ma ay dhicin qof dhawaanahan dambe burburkii intii lagu jiray dadkii tagay xilka u soo raadsaday dalkii hadana ku soo noqday in ay dib u celiyaan jinsiyadoodii labaad marka waxay u furaysaa waji cusub oo maadaama la sheego in xildhibaanaha haday yihiin siyaasadda wadanka oo dhan boqolkiiba ilaa inta ugu badan 60 iyo wax ka badan ba la sheego inay wataan baasabooro ajnabi ah waxay u furaysaa in hogaamiyaasha qaar marka ay meelaha qaar sida hadda madaxweynuhu waa kursiga ugu sareeyay wadanka ay rabaan inay u tartamaan oo kale in ay iyagana go'aanka noocaas ah ama lagu qasbo ama iyaga iskood ay ugu dhiiradaan inay dib u celiyaan dhalashadooda labaad ee wadanka kale ay ka yimaadeen marka wada cusub waxay furaysaa in alaale inta kale oo baasaboorada wato ama ay ku daydaan ama dadku ay kacdoon sameeyaan ay dhahaan anaga dadka dibadda ka yimid uma dhiiban karno kuma aamini karno leeyahay waxa way dad laba kaarla maalinka hadii inta wax ka waayo bari wadankiisu isaga noqonaya maalinkii oo inta wax ka qabsadana waa joogaya haduu wax ka waayna bari ilmihiisana xagee u digan yihiin waa guuraya waa noqonaya marka wada cusub ay furaysan qabaaniga cali markaad fiiriso go'aanka madaxweynuhu qaatay siyaasad ahaan muxuu wax ku soo kordhin karaa marka la fiiriyo siyaasiyiinta kale iyaguna sharciyo kala duwan oo haysto wadaman jinsiyad labaad haysto بسم الله عبد الله وما تسنتهاي مركور وحن umahad celinaya maadaama fursadan qaalayna siisay Soomaali Cable shaqaalaheeda guud iyo agaasimaha adiga aad ugu horeyso marka labaad waxaan leeyahay intaan su'aashaad u gudagalen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxa uu sameeyay go'aan maxalli jira taariikhi ah waxaan rajaynayaa inuu siyaasiyiinta kale role model u noqon doono baasaboorada ajnabiga wata ay ku daysan doonaan haddii aan u soo noqdo su'aashaada muxuu faa'iido leeyahay waxa uu leeyahay faa'iido badan oo aan halkan aan lagu soo koobi karin oo aan looga sheekeyn karin hal maalin aan looga sheekeyn karin soo marka faa'iido leeyahay waxa kamid ah baad la socotaa madaxweynuhu intii uu xilka joogay qolihii argagixisada ee al-shabaab ee la xukumiyay xabsiyada buux dhaafiyay lama toogan karin sababo la xiriira human rights iyo dalka uu ka haystay baasaboorka maxalli jiray qaramada midoobay in muddo dalka ku muusan metelin marna wasiirka arrimaha dibadda nagu metelay marna ra'iisul wasaaraha caqabad baasaboorkaas uu leeyahay ay ahayd sababta xarunta qaramada midoobay laba diblomaasi oo Mareykan hal qodbad kama wada jeedi karaan soo marka baasaboorkaas caqabada uu haystay ay kamid ahayd marka waxa la sameey karaa waxa meesha laga saar karaa la dagaalanka al-shabaab faa'iido uu leeyahay in baasaboorka ajnabiga la iska uma madax banaanaan karin sababta human rights lagu soo eedeynay soo marka waxa meesha ka baxaysa siyaasiyiinta wax loo yeerinay in al-shabaab la dagaalamo dadkii la xukumiyo xukunka lagu fuliyo waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin ayuu faa'iido badan ayuu leeyahay marka hadalkaaga waxa ka muuqda in madaxweynuhu uusan go'aanka isagu lahayn oo lagu khasbayo kale marka la fiiriyo dilalka ama xukunada lagu fulinayo dadka waxaan lahaa iminka al-shabaab ka tirsan oo la sheego ama sidoo kale ay kamid ahaato kale qaramada midoobay oo kala hadal uu ka jeediyo marka ma la dhihi karaa madaxweynaha qasab ay ku noqotay oo go'aankani ma ahayn mid uu ku degdegay aniga ra'yiga horta dadka madaxweynaha ka soo horjeeda waxay sheegeen in uu 3 bilood ka hor sharci la soo saaray caqabad looga dhigay iyo in lagu qasbay anigu waxaan dhihi karaa laguma qasbin labadaba ka fikir duganahay dadna waxay sheegeen in arinta badda maadaama guddi midowga Afrika ka socda ay hore imaadeen safiirka Mareykankana uu dhahay Kenya fadhiyo uu dhahay dawladda Mareykanka waxay faragelinaysaa kiiskaas soo marka kiiskaas uu isaga bedelay si uusan saameyn ugu yeelan dad baa dhahay laakiin waa macquul wixii jira alla nagog laakiin si fikirkeyga ah uma qabo anaga in lagu cuuriyaamiyay sababta dil cuuriyaaminayo 2 sano ayuu soo haystay madaxweynuhu 2 sanana uu dul qaadanayay iyadoo qaramada midoobay cadaadis ka saaray oo san qodbad ka jeedi karin iyo waxyaabihi kale iska arrimaha gudaha laakiin waxaan is dhihi karaa maadaama dawladdu
isbedel sameynayso dhanka amniga dardargelinta ciidamada hadda lagu jiro madaxweynuhu si aysan caqabad hadhowto ugu naqanin oo labadan sano dambe in uu fadhiga ka kaco madaxweynuhu doonaya uu isbedel sameeyo oo si go'aankiisa siyaasiyiinta kale ay ku daysadaan waan rajaynaynaa saacid hadalka cali marka la fiiriyo ma ku muuqataa in madaxweynaha culays dhanka arrimaha dibadda oo kale ama wadanka jinsiyadda labaad uu ka haysto kala Mareykanka marka la fiiriyo culays ka haystay sidaas darteedna oo isaga dhiibay jinsiyaddii labaad ee Mareykanka ani waa ii muuqataa waana waxa keenayba in uu jinsiyadiisa iska dhiibo oo dib u celiyo iyadoo aan lagu qasbin waxa dhici karta in xaaladdu ay ku qasabto xaaladana kalifaysa waxaan fiirinayay oo aan aqrinayay wararka ay ka qoreen jaraa'idyada waaweyn ee caalamka iyo dadka sidan oo kale kiisaska noocan oo kale ah ugu dhaxdhacay oo noqday laba jinsiyadood inay haystaan kadib midkood inay ka tanaasulaan ay dantu kalifayso horta Mareykanka dastuurkiisa sida aan maanta mar fiirinayay aad uma xusaayo oo ma weyneynayo dual citizenship-ka oo macnaha labada jinsi in la haysto kala aad uma mention gareynayo ma xusaayo laakiin saas oo tahay wuxuu ogol yahay qofku inuu iska haysto dhalashadii uu ka soo tagay iyo midda uu hadda Mareykanka u noqday marka Soomaaliya markaan u imaano aniga waxaan rabaa inaan aan taageero u muujiyo arinta ah in arintu xaaladdu ay ku qasabtay duruuftuna ay ku kaliftay oo laga dhaqaaqi waayo caqabado badan oo hortaagnaa darteedna ay ku kaliftay in dib loo celiyo waxa kamid ah horta Soomaaliya siyaasadaheeda markaan fiirino waxa horbooda oo dhawaanahan basaan ognahay albaabada cid walbo la garaaca aan laga fureynin oo cidda ugu weyn ay tahay oo iyada in loo soo maro ay u badan tahay waa dawladda reer galbeedka haba ugu tun weynaatay dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka Soomaaliya markay rabto inay wax ka qadamacdo ay wax ka qabato ama ay cid ay la macaamilayso markan dawladii hore way la macaamili jirtay laakiin haatan kiiska waa ka duwan yahay waxay la macaamilayaan muwaadin Mareykan ah oo madaxweyne wadan kale ka ah tagitaankii dalka Mareykanka oo saaxiibkiisu sheegay qaramada midoobay kaaga xiran tahay oo dawladda Mareykanka ciidanka haday ku qalabeynayso hadii ay taageero kale ku siinayso waxyaabo badan marka meesha waxa soo gashay in madaxweynuhu uusan helaynin faa'iidooyin badan oo ama cilaaqaad wanaagsan uusan la lahaan karin dawladda Mareykanka in allaala intuu yahay muwaadin Mareykan ah oo uusan heli karin faa'iidooyinka ay helaan sida dadka kale marka waxa dhacday in dawladda Mareykanka ay legal experts dad oo inta badan sida hadda aan xogta ku hayno oo arintan aad ugu dhoondolala ay yiraahdeen waxa laga yaabaa markaad citizen-kaaga hadda labaad aad dib u celiso in faa'iidooyin badan helo waana sida aan hadda aniga rabo inaan soo present garay halkan ka sheego wuuna heli doonaa marka hadda dib u celisid muwaadinimadiisii labaad faa'iidooyinka uu helaya ka badan marka saan ognahay madaxweynaheena tan ku soo gabagabeynaya waxa waaye taliyaha ugu sareeya ciidamada qalabka sida dastuurka Mareykanka waxa waaye mandatory wuxuu ku yahay ciidan qof walba wadanka inuu service-ka ciidanka uu yahay uu ku yahay qasab ku yahay soo marka qof muwaadin inuu wadan kale oo foreign ah inta tago officer ka noqdo askari ka noqdo officer waxaan ka wadaa ciidanka madaxweynuhu wuxuu aad ugu dadaalay inuu ciidamada qalab ka dhiso taliyihii guud ee ciidamadana waa asaga marka ma iswaafaqayso taageerana kama helayo dawladdiisii Mareykanka oo uu markaas ka yahay asaga muwaadin caadi ka yahay marka duruufo badan ku qasbaya oo taan sheegno ugu weyn ay tahay inuusan Mareykanka uusan tagi karin in wafdi uu u dira maahan laana Mareykanka waxa sharci ka yaala in passport Mareykan qofkii muwaadin Mareykan wadanka u dhashay kuma tagi karo wadankaas passportkiisa ahayn passport ajnabi kuma iman karo ilaahu diplomatic wuxuu doonaa ahaado muwaadin Mareykan haduu yahay waxa laga rabaa passportka Mareykanka inuu ku yimaado saas marka waxay meesha ka saaraysaa inuu helo faa'iidooyinkii loo fidin jiray madaxda oo kale soo dhaweyntii oo kale hab maamuuskii ilaaladii security clearance ma helayo wax badan ma helayo marka Mareykan waa taga u dhaho waxay noqonayaan inuu passportkiisa ku tago iska tago aan la soo dhaweyn aan la buunbuunin aan la sheegin shacab uu ka noqdo dalka Mareykan markuu joogo shacab uu ka yahay marka taa darteeda ku kaliftay xaaladahana ku kalifay in Mareykanka maadaama ay ugu tun weyn tahay dadka siyaasadda Soomaaliya aad ugu dhex jira in ma la yiraahdo bal markaad ka baxdid xoogaa waxa laga yaabaa inaan
taageero toosa ku muujino waa mid aan hadda rajeynayno cali marka la fiiriyo madaxweynuhu hadda uu dhiibay baasaboorkii oo jinsiyadda labaad ee Mareykanka fursadee ka xayirnaa madaxweynaha oo iminka u banaan uu qaban kara madaxweynuhu bismillah waa maasanta Cabdullaahi waxaa ka xayiraa wax walba oo horu socod ah oo dawladda Soomaaliya inay ku dhaqaaqdo loo baahnaa ayaa ka xayiraa runaantii baasaboorka ajnabigana saameyn dhaqaalena uu leeyahay mid siyaasadeedna uu leeyahay habacsanaanta dalka ka jirta isjiijiidka siyaasadahana waxaa kalifayo dawladaha reer galbeedka oo maxaa la jiray siyaasiyiintu ay ka haystaan baasaboorro siyaasiyiinta Soomaalidu waa dad baasaboorro 90% waa dad baasaboorro ka dal ajnabiga oo report laga sugayo oo maxaa la jiray يعني دل شيء أي صادر صدي دلال كاس أي أديجان دل كاس أي مركز رباط لجسوا مركز شقة أي قبنا أنا وسوماليا داعت ومن نقون كران سيد دونتو سيد اللغة بهنا يا دستور كان كملجار كوقيحة وما قبنا كران لكن مركز الفيريو حتى صاد لي هاي أنت بدل هذا ضد كده بدك سؤال لابنا يحيل كده قبنا أنت بدنا وضد أقوني هنا مركز أقونتي سوماليا أي لهاي محل هذا هلا لابتانو ضد كي جوجين هقبتان ما لهذا تقدي عبد الله وأنت أنا سؤال شاد وجود جلين بس دبعت دورت وحكينا باسبور كأجنبي جميل سامين دقالنا وليه mid siyaasadeed oo cuuriyaamaysi dalka siyaasadda cuuriyaaminaysan uu leeyahay waxaan rabaa inaan wax kaaga taabto sidii qodobkan hadda baasaboorka ajnabiga qofku wato ogolaana dastuurka loogu soo diray dastuurka waxaa jirtay xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariistay guddi Soomaaliyeed oo ka kooban 7 qodob kuwaas oo fadhigooda u ahaa magaalada Djibouti caasimadda Djibouti waxaana xilliga dastuurka ku jirtay nin baasaboor ajnabi ah ama naag ajnabi qaba inuu san dalka xil ka qaban karin company Mareykan ah magaciisa ma xasuusto sida waxa lagu soo gaabiyay DNI in lagu soo gaabiyay jeclahay kaas baa oo dawladaha midowga Yurubna ay qayb ka ahayeen baa qaaday dastuurkii afduubtay waxa la soo qoray sidii doonto qurba joogta la adeegsaday oo meesha soo galiyay in Soomaalinimadooda la inkiraayo marka dastuurkii sidaas wax looga bedelay xilliga Sheekh Shariif $54 milyan baa ku baxday xitaa dibu eegistiisii iyo qoritaankii iyo maxaa la jiray odayaashii 134 oday u gacan 138 oday ansixisay dastuurkaas waxa ku baxday adiga miisaaniyad lagu sheegay 54 milyan madaxweyne Farmaajo madaxweyne Shariif oo xilliga dalka hogaaminayay inuu ka dhawaajiyay aan jeclahay hadii xasuustayda qaldanayn soo marka waxyaabo isjiidjiidaya jiro dhibaatada uu leeyahay kale waxa ka sii mid ah sidaas horta qodobka soo galay dhibaatada uu leeyahay waxa ka sii mid ah iyaan horumarkii Soomaaliya iyo Kenya isku dhaceen siyaasiyiin baa qaar xataa dawladda inay xilalka aan jeclahay baa maxaa la jiraa elaboorka laga celiyay inay kii Soomaaliyeed gadaal gashadeen kan noo garaac yireenaysa Nairobi ku soo galeen xitaa waa nagu maqaalo soo marka dhibaatada uu leeyahay waa taas dal aad isku dhacsantiin baasaboorkaaga diiday laba baasaboor aad wadatid kaadi diblomaasiga ah ee Soomaaliyeed aad gadaal marsatay kii kale lagu garaacay dhibaatada ay leedahay ma malaysan kartid waxa kale oo kamid ah dib kuugu noqdo su'aashaadii hore wax lama toogan karin human rights ka lagu leeyahay biro lagu soo eedeynaa muwaadin Mareykan aan Taiwan lagu soo oogi karaa dacwad human rights ka haddii aad aragto isjiijidkan siyaasadeedna waxaa ka mas'uula beesha caalamka dadkii argagixisada hadda toos u wajihi tagtid u weerari tagtid waxaa lagu leeyahay liiska madow baan ka saarnay la shaqeeyay hatta mas'uuliinta qaar kamid ah mas'uuliinta dawladda qaarkood ay sidaas meesha ku joogaan iyagoo shal argagixisa ah bari ay dawladda ku dhaxmilmaan waxaa u sababa qofkii baasaboorkii ajnabiga ahaa maxaa la jiray go'aan isaga shakhsiyan ma gaari karo sababtoo waxa leeyahay qofkan liistiga madow baan ka saarnay سيدها كوشة قيسيس. لكن هذوك أنك خلاص سو محاول جديد مواد الصومالي ده. عقبات باهر تاجن تاسو إن أتاي مواد أجنبية بقول كيف سجاش إنه أجنبي سو مركب وحال. مية حاجة رجع كسر قصتك على الشعب وقارع الله هاي دولتي كترسيه يجمع مواطنين وين محاول جديد. مواطنين ويصح لكن وادن بليال وإن لحقيجيو وحيبهين محل يجري وسخذ ماذا حوض كوجر تلاقى سعره توابر لوفر شقل الله أبوره تيتلا النوع عصا كلا إن لجرسي ما كوابونا. هذا ما سنتهاي سعيد علي وحشجي إن بقول كيبا انتو بدل ايهين ضد واديغيو maxaa lahaa wadamo shisheeye ama wadamada ay ka haystaan sharciyada oo jinsiyada labaad ay ka haystaan raga ama siyaasiyiinta kale dalka Soomaaliya ka adeegaya adiga waxaas oo kale ku muuqan karaan mise waxa ku muuqda in ragan ama siyaasiyiintan kale ay dalka ku soo kordhiyeen aqoontii ay wadamada ay ka yimaadeen ay ka soo kororsadeen waa mahadsan tahay saaxiibkeena wuu mahadsan yahay oo qaabku u dhigay aniga kastoon ka duwanahay horta qofka
ma judge garan karno mana generalize garan karno dadka dhan ma dhihi karno kulli nin walba soo baxa oo xataa qalbigiisu samaa oo dalkiisa inuu wax dib ugu soo celiyo haduu aqoon tahay haday ganacsi tahay haday hawlo kala tahay ma dhihi karno waa la soo dirsaday kulligood waxaan ka wadaa laakiin wax waa ka jiri karaan kiisaska noocaas oo kala ah leena qofkan waa muwaadin wadanka u dhashay macnaheedu muwaadinimada waxay tahay waa ina u hoggaansantaa awaamirta iyo shuruucda iyo wadanka dastuurkiisa u hoggaansamaysaa waay marka dawladda haday maanta iyada ah gacanta kugu yeerto wax kasta kugu dhici kara ma ogiina nin geesiyo too dhigi kartid aniga wixin waa wadankiina iyo waa idin celina waxba laakiin anytime waqti kasta ku yeeri karaan oo dalka loo baahdo dalka ajnabiga ah markay ay dawladaha reer galbeedka oo kala Soomaaliya ay ka soo saarayaan digdiinaha ammaanka oo kale waxay yiraahdaan muwaadiniinteena ku sugan Soomaaliya iyo Somaliland iyo dhulalkaas waxaan uga digaynaa xaalada socda muwaadiniinta ay sheegayaan wax kale ma aha ragii dawladdu noogu jiray xildhibaanada muwaadiniintooda ee u naxayaan waa dadka maanta ninka asaga hadii hawl kala qabsato dawladda koow soo faragelinaysa waa dawladdaas awood leh oo furanaysa oo kiisas badan la arkay laakiin iyaga laftigooda iyagoo ku haysto wadamadaas iyagoo caafimaadna ku haysto waxbarasho ku haystaan lacag fiican ku haystaan ay dalkoodii oo burburay ka soo saarayaan oo naftooda u hurayaan qaarkoodna ay ku geeriyoodeen kuwaas iyaga soo lama dhihi karo iyaga laftigooda wadanka wax badan u soo hureen awal baan ku sheegay oo horta la isku ma jamcin karo qofka niyadiisa ku xiran tahay intooda badan dalka waxay u yimaadaan in anisan qabo waaye inay wax qabtaan horto laakiin on the process ama on their way inay wax ku qabanayaan qaabkay u socdaan wax ku qabanayaan waxa dhici karta inuu wax qabto hadda madaxweynaha kale haduu rabo inuu wax qabto hagaajiyo waxa laga yaabaa inay isdiidaan interestiga dawladda oo wadanka asaga ka haysto iyo sida uu wax rabo inuu qabto oo meesha khilaaf ka dhasha ka dhici karta marka siyaasiyiinta wax kaliya caqabad ku noqon kara haduu asaga daacad yahay oo inuu wax qabto rabo dawladda inuu ka soo horjeesto wax khilaafaya tusaale ahaan Kenya joogna nin Kenyana hadii loo ogol yahay tusaale dual citizenship sida wadamada caalamka haduu inta tago oo Soomaaliya xil ka qabto oo Kenya iyo Soomaaliya isku dhacaan waxa dhici karta in la yiraahdo haye maalin hore arkaynay ninkii ugu sareeyay ku-xigeenkii nabad sugidda Fahad Yaasiin oo ay dawladda Kenya lahayd waaba muwaadinkeena anaga oo wuxuu haystaa sharcigii iyo kibaandadii iyo wixii uu haystaa ay lahayd dawladdu markii labada isku dhaco dadkeeda ay sheegan kartaa waxa waaye qofkii marka waa loo yeeri karaa xataa marka badidood anigu sidaan qabo waaye waxay u yimaadaan inay wax qabtaan laakiin xaaladaha qaar way ka hor istaagaan oo ama dawladaha shisheeye ha noqdaan oo danahooda ka dhax arkin laakiin badi Soomaalinimo iyo qalbi wanaaga ku jira marka laga reebo qaar yar oo laga yaabo in hunguri uu wado ama hawlo kala wado wax inay u qabtaan ay u soo noqdaan dhanka baasaboorka kale marka la fiiriyo faa'iido intee leeg ayaa baasaboorka Soomaaliga ugu jirta hadii xitaa la dhaho siyaasiyiinta ha qaataano baasaboorka Soomaaliya ama qofkii xilka rabo Soomaaliya runtii waa mahadsan tahay aniga sidaan qabo iyo dadka ila midka ahba say qabaan baasaboorkeenu wuu ku kobcayaa sumcadeena iyo dawladnimadeena magacay ku yeelanaysaa in leena waxay ahayd sida shuruuciyada kale oo aan arkay qaarkood waxay qabaan qofka markuu muwaadin yahay wadankaagan baasaboorka la kuma soo galaysid meel kale ku aad daarabtid laakiin wadankaagan aad second citizen ama first citizenship ka tahay aad u dhalatay markaad soo galaysid waa inaad ku soo gashaa baasaboorkaaga aad ku soo gashaa dawladaha waaweyn ku dhan waxay qabaan saas adiga haddaad dhalasho kale leedahay dhalashadaada kale meesha doontaa ka shaqeysa ama iska hayso laakiin wadanka waxaan qabi lahaa hadda dad badan waxa arkaysa iska imaanaya inta wadanka yimaadaan baasaboorro Europeana reer galbeeda ama wax kala wata markuu wadanka yimaado qofku waxa laga rabaa canshuur airportkan ku arkaa aniga hadda koor qof dhahaya ani maxaa la iga qaadaa leena adiga maaha adi Soomaali hadaa tahay xataa waxa waajib kugu ah intarigi wadanka inaad dhiibtid $50 haday ahayd haday $100 ahayd markaad baasaboor ajnabi watid qaar badan oo isku haysta arka aniga oo leh baasaboor wuxuu wataa ajnabi ah airport markuu soo galo immigration loo adeegayo waxa lagu la dhaqmaa sidii ajnabi ma aha muuqaalka ina Soomaali ka tahay laana waxa ka tarjumaysa baasaboor wadan kale marka qaarkood waxay ku doodaan lacagta maxaa u dhiibaa okay lacagta hadaan rabin inaad dhiibtid wala ogol yahay adduunka labada baasaboor inaad haysatid meelaha qaar soo qaado wadankaaga marka imaanaysa baasaboorkaaga ku imo laakiin haday dawladaha ugu diidan yihiin kaliya kaaga sanka naga gelin marka baasaboorkeena in magac u yeesho waa u baahanahay oo hadda act laga soo saaro oo sharci laga soo saaro
dadka xilalka qabanaya dadka magaca leh kulli in la siiyo baasaboor surface diplomatiga iyo baasaboorada kale la halmaala ee muujinaya inay yihiin dad xil u haya ee dawladda Soomaaliyeed si looga maarmo in mararkii ay meelahaas kale ku safrayaan ama loo aqoonsado inay yihiin dad dawladdu adeega oo diplomatic ah ali marka la fiiriyo waqtiga hadda lagu jiro ma isleedahay way ku haboon tahay in siyaasiyiinta rajada kale siyaasadda Soomaaliya ama kuwa hadda imika xilalka ka haya dawladda Soomaaliya in baasaboorada wadamada kale ay ka wataan iska wareejiyaan oo ay baasaboorka Soomaaliya qaataan بسم الله وما تنت أنت نسوا أشياء تقول جدين وحربة ولا الكي وحربة يجلس ودح بحي فإذا ولي هربان أنا كل لابتو أنت نتاد وجود جلين ما دام فلان قينينه فإذا ولي وحكم ذا وحكر أسوق عيا أو سسرة أسوق عيا جريتان كصومالي نمو especially jinsiyaddeena baasaboorkeena kor u soo kacaya marka waxa kale oo leeyahay maxal dhihi jiray dhaqaalaheenu kor u soo kacaya dhaqaalaheena markaan ku leeyahay qaybta saameyn dhaqaale uu leeyahay ee sheeg baasaboorka ajnabiga saameynta dhaqaale waxa ka mid ah maxal dhihi jiray madaxweynaha dalka ugu sareeyay wuxuu watay baasaboor ajnabi gudoomiyaasha degmooyinka xamara ugu hooseeya waxay leeyihiin baasaboor ajnabi dhammaan waa diaspora xaasaskooda iyo carruurtooda waxay joogan misaal ahaan oo kale Kenya ama maxal dhihi jiray ama Ethiopia mushaarka ay qaataan dalka kuma laabto dalkaas baa loo diray koronto biyo lagu bixinayaa VAT dhaqaalaha wadankeena marka waxa laga dhisaa wadamo kale soo marka hadii baasabooradaas laga celiyo oo ay kan qaataan siyaasad degan oo hufan Soomaaliya way yeelanaysaa siyaasad qabowna waa helaynaa baasaboorkeena kor u kacaya dhaqaalaheena kor u kacaya laakiin waqtiga hadda ma haboonta waqtiga hadda lagu jiro waqti xaadirkan hadda way haboon tahay saamaxaya waxaan leenahay maxal dhigi jiray dawladdeena hadda dawlad federaal oo adduunka laga aqoonsan leenahay calaaqaad badan aan leenahay especially dariska xiriir wanaagsan baa nagala dhaxeeya maxal dhigi jiray marka laga soo tago Kenya xoogo xiriir madmadooba noo dhaxeeyaan beesha caalamkuna dawladda si hufan bay ula shaqeysaa inkastoo safiirkii isku dhacaan mid kale loo soo bedelay waana laakiin dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay sidii lagu bedeli lahaa maxal dhigi jiray sharcigan hadii waxaan maqlay in dawladdu hadda ay qorsheynayso in dastuurka wax laga bedelo lagu soo celiyo qof baasaboor ajnabi la dalka xilka kama qaban karo waxa muhiim ah in ay isku raacaan maadaama xildhibaanadana ajnabi badana 90% yihiin ra'iisul wasaarina ajnabi kale yahay waxa muhiim ah in qoliyaha hadda talada haya ay isku fahmaan sidii loogu soo diri lahaa qodobka wax ka bedelka dastuurkana waxa iska la baarlamaanka laakiin waxa ka horeeya laba qodob qodobka 134 iyo 35 kaasoo qeexaya in guddi loo saaro heer federaal oo maamul goboleedyada xataa ay ku leeyihiin xubin maamul goboleedyadana waa aragtay dawladda dhexe marka waxa u dhaxeeya khilaaf xoogan wax ka bedelkiisa baarlamaanka iska laakiin waa in guddi ka soo shaqeeyo oo jiro la isku soo fahmay isfahmi ka hoosa liito waqti qaadanaysa wax ka bedelkiisu هذا ما استعلي سعيد دب وصل لابتدي واحد جرى دنيا بدن أو جامعة كقلنجبية وطن كصوماليا كدبنا شغوين كيقوات كهذان إن دولة دي كهلان أمي هي أديه وكلا كهلان يجوا عن سداي أما أحكي دنيا بدن ضل كدبدي سكي مد بس برا كلاوتو كدبنا شغوين للصين يو ملا في عمجين يو وأنكي أما فكرة دي أهيد إن دنيا ردوا وطن كتهريبا وطن كلا تجان سشرع وسوقاتن كدبنا ضل كيدب وصل لابتن وسياسة ay ku soo biiraan fikirkaasi muxuu ka bedeli karaa go'aankii madaxweynaha aad u mahadsan tahay horta su'aashaada aad u qurxan tahay su'aalaha la rabana waa su'aalahan oo kale oo dhalinta aad u saameeyay laana waxaan u arkay waaqici ahaan u arkay waxa arkaysa rag badan iyo dhalinyaro badan oo dalka inta tagay ama meel kasta tagay isaga soo cararay hadana waxay isaga soo carareen waxa waaye boos baa la siinaya ama jaga loo magacaabaya ama wuxuu doonayaa inuu dhaqdhaqaaqo ma dhaqdhaqaaqi karo wadamada ugu dhow xataa kuma soo gali karo waa inuu fiisa soo dalbada ayaan soo raadsada wax soo magaciisista waxay ku noqotay dhalinyaradii qaar ku qaadatay ganacsatadii qaar qaadatay dad badan oo ama inuu shaqaysto rabay ama dalalka isaga safro haday carabahan tahay haday meel kala dambe China iyo Bangkok tahay waxay ku kaliftay dhamaantood inay raadiyaan baasaboorada wadamada aan jaarka nahay iyo inay raadiyaan baasaboorada wadamada markay ugu sokayso Soomaalida walaalahayna sida wadanka Djibouti oo kale oo bixisa iyo dad kaleeto wadamadood baasaboorkood inay raadiyaan waxa ku kalifay waxay ahayd dad dhalinyaradii kaleeto oo heshay ama dibadaha ka timid ba waxa arkaysa laana wad baasaboor waxa arkaysa baasaboorada qaar visa free waa wadamada Finland oo kale baasaboorada caalamiga hadda dadka wato kaleeto markay intii maadan ama America oo kale visa free
fiisa wadan laguma galo intooda badan caalamka oo dhan intooda badan waa fiisa free ku soo tagaan wuu iska iimaanaya tigidkiisu iska soo jaranaya meesha walba iska tagaya marka adigoo Soomaaliya waxa laga yaabaa fiisa ka sokow in baasaboorkaaga aan wadamada qaar aysan aqoonsaneyn iska daa fiisa in uu xoreysatay marka qofkii waxay ku dhiirigelinaysaa marka inuu baasaboor ajnabi raadsado si uu dhaqdhaqaaqiisa iyo hawlihiisa u fududeeyo tani marka go'aankan madaxweynaha ee geesinimada lahaa waxay muujinaysaa ayna ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada kaliya ma ahan dhammaan dadka shaqaysta ee ganacsiga iyo hawlaha kale u baxa inay at least raadsadaan baasaboorkeeni iyo magaciisii inay soo celiyaan ee isku dayaan inay bal asagi nooleeyaan dhalinyarta marka wax baratay dalka tagtay inay ku qancaan madax meel ka korayso la sarax ma jiro madaxweynihiiba hadii uu maanta hal sano iyo xoogaa u dhiman maanta berri haduu soo noqon waayo waxa waaye uu nabid yahay anagu la mid yahay in dawlad magangalyo siisa ma ahane waxay noqonaysaa in madaxweynuhu uu dalkiisa iska joogo waa muwaadin Soomaaliyeed anagoo kale laakiin waa dhici kartaa in xoogaa loo fiiriyo oo dawladaha qaar ay yiraahdaan sida madaxweynayaashii ka horeeyay hadda aan aragno kale in magangalyo la siiyo siyaasadeed marka qofkii waxay ku dhiirinaysaa madaxweynaha wadanka waa jooga laakiin madaxweynuhu hadda kaligiis ma ahe waa in anigu waxaan qaba lagu daydo dadka kala qaar ku daydaan siyaasiyiinta qaar ku daydaan wasiirada ku daydaan dhowr qof oo go'aanadaas qaata la helo markii la helo waxay muujinaysaa berri wadankeenu inuusan gadaal aan u soconin laana cabsidii waxa naga baxaysa xaada aha berri wadanka la isku ma haleyn karo waa la kala cararaya waxa imaanaysa qofka inuu isgeliyo uu yiraahdo wadankaaga biriha war baasaboorkeenu uu qurxanaanaya wadankeenu waa dhismaya xaaladda amaanku waa hagaagaysa dalkeenu dawladnimo gaaraya oo qof walba ku qanco oo ninka hadda halkan dibadaha jooga ama meel walba jooga baasaboorkiisa Soomaaliga uu goosto wadamadana uu ku tago oo meel walba ku maro isaga qanacsanaada imaanaysa aad ma sata ali hadii sharcigan lacala ay dhacdo in baarlamaanku ay mariyaan ama la soo saaro in qof jinsiga labaad wato wadanka xilka qaban karin siyaasiyiinta qaar haday ku adkaato in ay wareejiyaan jinsiyada labaad ee wadamada kale ay wataan muku muuqata in fursadan ay ka faa'iideysan karaan dadka ama dhalinyarada wax ku bartay dalka gudaha dalka wax ku bartay muku muuqata arintaas aad iyo aad fursad weyn waaye sharcigan waxa uu meesha ka saarayaa maxaa la jiray tahriibta uu yareynaya horta marka sharcigaas baasaboorkan madaxweynuhu iska saaray ajnabiga sharcigan hadii lagu daro faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid ah in la iska saaro in uu yareynayo tahriibta dhalinyaradu waxay u tahriibi jireen si ay baasaboor ajnabi u soo qaataan oo badaha ugu laan jireen maadaama aysan gudaha xilka qaban karin iyagoo aan maxaa la jiray baasaboor ajnabi wadan soo marka kaasna meesha uu ka baxay tahriibta uu yareynaya kan kale aad leedahay Janice Matay fursad waaye wuxuu yareynayaa number 1 musharaxiintii faraha badnaa dibadaha ka soo yaaci jiray 30 iyo labada musharaxa 25 musharaxa ee sumcad dilka ku ahaa dalkayna adduunka kuma dhicin 22 musharax 25 musharax adduunka lagu maara waa ceeb soo marka waxyaaba Soomaaliya bay qaas u tahay sidaan intan baaritaanka ku hay soo marka waxyaabahaas uu meesha ka saaraya waxa kale uu maxaa la dhihi jiray meesha ka saaraya hadii ilaahay ku roon yahay siyaasadii oo maxaa la jiray siyaasiyiinta loo yeerinayay sidaan ii sameeyay sidaan ha sameeyno caalamku wax u meerinayna gacanta la qabanayo buu meesha ka saaray marka dhalinyaradana waxay u tahay fursad weyn oo aan la soo koobi karin marka waxaan leenahay madaxweynaha maadaama uu dhalinyarada ku dhiirigeliyay siyaasiyiinta kale inay ku daysadaan waana wax maxaa la jiray run ahaantii oo ku mahadsan yahay madaxweynuhu in loogu hambaliyeeyo dhalinyaradana waxaan ugu baaqay inay fursadaas ka faa'iideystaan siyaasiyiinta baasaboorada ajnabiga ahna waxaan leeyahay ku daysado inuu role model u noqon doono ayaan rajaynaynaa fursad weyn aan la soo koobi karin inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad ma san tahay hadii dawladdu ay sheegto in sida hadda Ali uu ka dhawaajiyay in dhalinyaradii ama siyaasiyiintii kale ay adkaan doonto in siyaasiyiintii iska soo baxay maxaa la dhahay madaxweynaha u taaganahay iska badna ay yaran doonaan soo fursad uma banaanayso dadka kale oo gudaha wadanka ku sugan in rajo u sii yeeshaan ama qaarkood ay iska bedelaan xitaa sharciyadii kale ay wadamada kale wateen warunta oo yeelanaysa saaxiibka sheegay raggan dibadaha qaarkood xataa laga yaabo inay wax ku soo waayeen yimaado wadankii is yiraahdeen bal wadankii le fursad leh wadankii taga is yiraahda ama xilal u tartama ani waxaan qabaa horta hadan wixii ka horeeyay ma hadda iyo wixii ka horeeyay hadda wixii ka horeeyay wax fursad siman ma aysan u lahayn laana waagi hadda wixii ka horeeyay waxay ahayd ninka baasaboorka ajnabiga ah wata wuxuu ahaa
wuxuu ka ahaa wadanka asaga wuxuu ka ahaa ninka ugu sareeyo la tixgeliya ahaa ninka wadanka ku joogay ee muwaadinka ahaa ee qorax jooga ahaa ee dalka joogayna baasaboorkiisa ka sokowba lama aqoonsanin awal waxa la fiirinaya bas nin bixbixi kara seminar hadii meel laga sheego baasaboorkiisa wata jeebka gashtay tagi kara hadii hawshiisa fududahay qarash ilmihiisa xagga u joogan wixii hawshiisa isku aadan tahay laakiin أنا وحن قبا كلية إنترتن عادية لقديه ضدك جودها جوجا أي هلان فرصة ضدك دبدة جوجا هذا السين نوجا وده هلان اللي بنا ذكر هدي ضدك جودها جوجا أي وده هل الهاين وأوكي لأن أنا جينا كعرضنا ما ضدك دبدة كإيمانها قاركود ما هني most of them وحوا وحلصوا نقونا يان خبرة يويارجني ما يأقون يوحلصوا نقونا يوحبذا ضدك جودها جوجينا إن فرصة ضد الصيان قبا كوا دبدة كإيمانها يان أنا لدهند سومالي نمد اللي عدو ديدي كرتمله وأديك ساعته سومالي وياه si kasto baasaboor u wato laakiin sharciga adiga kaga hor istaagi kartid oo wax ku qabsanayo wax ku noqonayo laakiin si mutadawacnimo leh haduu uga tanaazulo unless aanan lahayn dastuur ama qodob sheegaya inuusan waxba ka noqon karin hadii la keeno goonideeda laakiin haatan si mutadawacnimo leh in lagu dhiirigeliyo isaga noqdo oo dadkii dalka joogay la kobciyo la soo dhaweeyo baasaboorradooda lagu aqbalo fursad badan la siiyo ama 70% hadii la siiyo kuwaasna taati la siiyo wax way fiicnaan lahayd aaminsan ugu dambeyntii cali maxaa faa'iido ah oo u muuqda ama ay ka faa'iideysan karaan dadka gudaha Soomaaliya ku nool iminka oo sharciga madaxweynuhu hadda uu dib iskaga celiyo kale uga faa'iideysan karaan oo badan بسم الله عبد الله وما سنتهي فائدة إنك هدي وحي كفائدة سكران مركا قطب كان باسبور كأجنبي قفك وتو محل يجري لغوصو در دستور كأما قد قدور شو إنك يسو ساران دلنيرات قدها جوكت بقول كي وطلبات يشن سومالي وحلو شغا إن دلنيرات هاي لكن أنا وحنا أمسان إن كبدن تاي ترى داسي ترى ملا أولا قياس أي ترى قياسة سو مركا وحنا أمسان هاي إن أي فرصة مهم أو تاي لكن وحاكوه الرأيو إن سياسيين تهدى باسبور كأجنبي وتا ay ku daysadaan madaxweynaha sharcigana lagu soo diro markaas ay jaanis u tahay maayne hadii ay sidaan lagu sii wado jaanis uma muuqan karo aad ma saday saacid marka la fiiriyo dadka siyaasadda dalka wax ka doonaya iyo dadka iminka haya iyo sidoo kale dhalinyarada gudaha wadanka ku sugan oo iyagu raadinaya fursad ugu dambeyntii maxaa isleedahay fursad ahaan way u banaantay horta waxa way saan awal ba sheegay wada furantay oo ninka horta xilka ugu sareeya madaxweynaha waxa imaan doonta hadda kadib ninkii xataa damco asagoo baasaboor kala wata in madaxweyne farmaajo taariikhdu hadda dhigayo kale qof walba la yiraahdo fursad looga dhigto asaga naftirkiisa uu intuusan isku soo ceebeen oo uu soo denounce gareeyo oo soo ka soo dhaqaaqo oo soo tanaazulo kadib inuu soo tartamo oo isku dayo taasi ku dhiirigelinaysa qolooyinka kale ee xilalka ka hooseeya ama wasiiro ama xildhibaano ama dadka kale ana waxay naftirkooda ku dhiirigelinaysaa inay bal ayaga naftirkooda qaarkood go'aanada noocaas qaataan dhalinyarada gudaha joogana saan sheegnay waayo waxay ayagana ku dhiirigelinaysaa waxay siinaysaa aragti ah ama go'aan ah ama dhiiranaan ah waxay siinaysaa in bal baasaboorkoodii Soomaaliga ahaa ay ku dhaganaadaan asaga meel ku gaaraan siinaysaa waxaan rabaa inaan ku darsado taaksokow wax xasaasiyad laga qabo arrinkan anigu ma qabo dadka qaar laakiin ka muujiyay laba qodob ahaan ugu soo bandhigaya dadka caalamka ah dadka qaar waxay su'aalo ka keeneen laba su'aal mid waxay yiraahdeen way maxaa hadda ku soo aadiyay maxaa halkan ku soo aadiyay waxa ku soo aadiyay wax kale ma ah madaxweynuhu 2 sano iyo xoogaa u jooga sida la sheegayna waxa sameeyay maraykanka senator hatta dad qaar xisbiga u tartamay republicanka ah oo iska dhaleen Canadian iyo Cuban iyo adduunyo iska dhaleen maraykanka sanadka sano kale 2014 senator Ted Cruz hadana khaldaneen aasano kale isaga cazilay dhalashadiisi Canada waqti qaadata waa xareynaysa legal expert process maraysa dad la kaashanaysa marka xariisid fiya bixinaysa marka dalbatid waa lagu soo jawaabaya waxa la fiirinaya waliba sababaha kugu kalif sababta madaxweyne farmaajo kalifto sabab cad ay ahayd waxa wadanka madaxweyne ka noqday waqtiga ku qaadatay dad qaar waxay ku leeyihiin way markii uu yimid citizenshipka in la iska denounce gareeyo loo dhaho wadankayga waa ka tagay ma aha meel aad ka soo tagaysa kama ciinayso waxay u baahan tahay shuruuc iyo process dheer ay u baahan tahay sida hadda ay noo sheegeen way soo jiitamaysa madaxweynaha kaliya ma aha madaxweynaha Afrika hadda u dambeysay madaxweynihii Liberia ciyaartooygii hore Georgia Weah
wuxuu ka tanaasulay dhalashadiisii Faransiiska ah hadeer markuu madaxweynaha saas u qabsadayba processkaas u galshay asna sidoo kale uu ka degay oo ka tanaasulay waxa kale oo jiray in madaxweyne kale oo Georgia wadanka ahaa asna madaxweynuhu ka ahaa Ukraine iyo Georgia iyo wadamo badan buu ka dhashay markii dambe Ukraine uu yimid laakiin ka waxa ku dhacday reer Ukraine tay sameeyeen way ka duwan tahay waxay sameeyeen madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko wuxuu sameeyay in uu asagi kala noqdo muwaadinimadii ninka asaga ah leena wuxuu wadan kale madaxweyne ka soo noqday waa anaga madaxweyne farmaajo hadda madaxweyne wadankeena ka ahaa markuu Mareykanka tagay lagala noqday sharciga lagala noqdo kaleeto laana waxyaabo kasta kugu soo bixi kara marka wax xasaasiyad ay laga qabo uma maleynayo inay tahay marka faa'iidana waa ku jirta kullay khasaarana waxay ugu jirtaa dadka kaleeto oo xoogaa shakiga ka qaba in baasaboorkooda loo dhaafo iska rabi laana kullay wada fiican uma aha kullay baasaboorkooda isaga meel maraan ama sanadkaasi qaabka uu noqon doono gudaha intaas ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka waxa ay la qayb galayay oo aan mahadcelinayna waqtigooda qaaligan barnaamijkan kusoo bixiyay Ali Maxamed Abuukar iyo sidoo kale Saacid Daahir Saacid Sona barnaamijkan uga hadlaynay baankii madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka bedeli karo dib u laabashadii ama dib u soo celiyay baasaboorkii Mareykanka oo ahaa jinsiyadii labaad oo madaxweynuhu watay process dheerna ay soo martay bishii August 2deedii ayuuna go'aankaasi madaxweynuhu uu soo shaacbiyay aad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga dhanka farsamada iyo kaamirada waxay Cabdullaahi Jaamac iyo Naasir Macallim aniga Cabdullaahi Axmed Cali la socodsiinayay dib intaan kulmi doono barnaamijkan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda soo dhawaada dukaanka Bellona waqtiga Eid waay waqtiga holiday waay wax dhan iskugu imaaday waqti kuleelka hadda Bellona ofriyaal fiican qabnaa iyo alaab oo clearance ah intoo maxaan dhigi lahay oo samarkan hadda samarkan aadin meel oo maxaan dhigi holiday ah gurigiina aad ku samaysan kartiin lacagtaas hadda oo jeedin dhinaca oo sectionka oo ilmaha ni keenay oo Bellona kan Enfield hadda joognaa kan Lusham xataa section oo muxuu qabaa dhinac oo ilmaha leh hadda ogtihiin hadda korna waan ii sheegay in aan qabno sariir iskorsaar waliba offerka waa arkaysan ugu dambaysa offerka sariirta iskorsaarta aan qabno sariir iskorsaar afar oo kala nooc aan qabnaa hadda maxaan idin tusaa qolka sadiyaasha oo inta yaalo hadaartiina website waa gali kartiin waa arki kartiin kuwa kala nooc ama information dukaanka oo soo wici kartiin hadda maxaan idin tusaa qolkan oo single ka formula waaye laba sariir oo la imaadaa hadda sariirtan sariir caadi u jeedin racing car oo la imaada sariir kale oo maxaa oo baabuurka xataa micro muxuu qabaa furuuq qabaa oo nalka daarmay maxaa dhila xataa vroom noise wax dhan u sameynaa so hadda kan oo inta North London kana yaalo kan Lewisham hadaa tagtiin maxaa yaalo kan baabuurka so hadda waan inta kan setka oo armaajada oo maxaa dhila oo saddex irid armaajina oo sliding uu qabaa so muxuu qabaa xataa study desk ilmaha oo maxaa homework ku sameyn karaan xasuusta qol kasta oo ilmaha maxay qabaan oo study desk iyo kuwa qaarna hadaa website ka gashin maxaa arkaysiin bookshelf meelaha oo buugyaasha oo la gashan karo oo maxaa ilmaha hadii oo studiyaarena wax dhan oo sameynayaan so hadda waan inta soo gudihiisa suu egyahay qumaniya qumana
qumano aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyey waa dukaanka loo qiray qalaabaynta guryaha loo wada riyaaqay soo booqa mar quraindhaha ku qanciyo dukaanka marmar qaar haddaa aad dukaanka weydiiseen big single qabnaa 100 iyo 200 oo dhererka ah hadda maxaa sariirtan u jeedin madaxiisa leather wine cream waa guduud soo ilmiin hadday jecel yihiin off white ama cadaan iyo guduud ah this is qolkan oo fiican maxaa wiil iyo gabar buu ahaan karaa qolkan wiil ma ahan wiil ma jeclo baawriyaasha oo maxaa very fast ah so iyo Ferrari iyo gabdhaan arkay oo jecel soo waa u maan kartiin hadaartiin iyo afriyaasha oo maxaa ilmaha oo qolka qabna waana weydiin kartiin balona ogtiin kursiyaal oo kala nooc ahayna hadaa Lewisham imaadin kuwa kala nooc arkaysiin hadaa Enfield imaadin oo Pondazen kuwa kala nooc ahaysana soo hadda maxaa tusaa kursigan oo setka ah oo 3 hal waay waa ogahay colorka the first time actually markuu warayso color madow iyo blue isku jiro waay kursigan 3 uu ku imaadaa 3 iyo hal hadaarti information hadaartina ogaatiin dukaanka imaada ama kan hadaartina physically aragtiin ku aragtiin gacanta ku taabatiin maxaa sameyn kartiin dukaanka Enfield oo Pondazen uu yaala colorkan waa bedel karaa qasab maana colorkan garatid so hadwani tusaa tartiib inuu storage leeyahay inuu sariir noqon karo qumano aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyey waa dukaanka loo qiray qalaabaynta guryaha loo wada riyaaqay soo booqa mar quraindhaha ku qanciyo dukaanka waa ogtihiin waqtiga oo iidda la imaaday iidana maxaa dhacdo familka way soo bataan saaxiibayaasha way soo bataan holidayga dadka holiday u imaanayaan waana ogtihiin familka holiday marka ka imaadaan Europe iyo meel kasta in la fadhiisto waay cuntada in la cuno waay xalwadii biscuitka iyo in la cuno shishimooga iyo cun so hadda anaga offerkan qabno maxaa waaye alaab oo clearance ahayno inta ka gadeyno oo in 1 week hal week bo guriga lagu keenaa soo dhaqsada soo alaabta oo fiirsatiin Lewisham in Enfield design-ka nooc kale waay design-kan wuxuu ku fiican yahay dadka oo maxaan dhihi lahay oo dhabar xanuun ay qabaan kursigan gadaal godu ka yahay waa u jeedin design-ka color kalena isku wada color nu ahaado maahan color kale nooca ka dhigi kartiin kor nooc kale hoosna nooc kale hadda wax kale aan sameynayno maxaa waa iida 11 12 13 14 maalmahaas hadda wax gadatiin carpet afrid in lagu siinaa carpetyaashana 350 ka bilaabaan soo min fadlak imaada dukaanka Bellona wixii ratiin choose garee kursi ama qol hadda dalbatiin waa arkaysiin giftan la siinaa dukaanka Bellona bishaaro Premier Bank wuxuu idinku bishaareynayaa qiimo dhimista weyn ee uu ku sameeyay qaadashada Mastercard Premier Bank Mastercard waa kaash ku qaado ku bixi biilasha ama online wax kaga iibso dalka iyo dunida oo idil